السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين وناكسن ووعن صحابي وان كل راجن بريهان مال استوي مال يحيسي أنا وأنا دين حيسي هذا أنت كجذب صحابي على عتبة وطا أنت أنا برنامجي وقد قل ما أنت عتي قاسو هذه الشانل كعسب تهاي سبسكرايب لايك شير وحاجة أنا جانو بحسو تشيدنا وحاجة ما أنت صحابي وحنا دين وذا قصة أن آد ولا يابي آد ولا صيابي وما أركتي حنون كذا له واي أرك نمدي أذن له بان ربعنا أذن له ذا ما أنت صحابي قصة المحل يراهدا إن صاحب كيجي هور أمرين كيجي هور أو محيته يجوا حنتبه إنه يجرجريو أنت إدلوا ولي بيجرجريو بالي هذا قصة المجال هذا أصحابي قصدان waxay ku dhacday gabar la yiraahdo Yvonne gabar la yiraahdo ku dhacday qissadaan waxay ka dhacday wadanka Jarmalka magaalada Frankfurt ayay ka dhacday qissadaan gabadhan Yvonne la yiraahdo waxay ahayd 26 jir model ah bay ahayd Yvonne ayaa ka sheekeynaysa qissadaan Yvonne waxay tiri maxay ahayd waxaan xiriir la lahaa nin la yiraahdo maxay ahayd Tom baan isbaranay ومحي تحرير معان أو ما عرفتي حرير دحل قل عن إسلحها كل إنه حرير دحل قل يهي بانا دحمر يعني جي ويلكلي هذا توم جعيل والئة حد داف محان كلها هذيك جعيل ده لما شيء كرو يمحي دي زمان دي بحد يجري نحي يميح يمال دي يجري something like that هذيك جعيل كله عن القياس كريم بعد دحمر قبل إيفون هيد يويلكي تيم أها xiriirkooda markuu halkaas marayo oo ay dad isjecel yihiin oo ay muddo wada socdaan ayaa ninkii maxay ahayd Tom aha ayaa waxa banaanka mid dabeecadihiisa runta aha boo la soo baxay dabeecadihiisa runta aha wuxuu bilaabay inuu yiraahdo yaan lagu ag fadhiisanin yaan lagu la hadlin dadka hala hadlin nimankii ma istusaysaa maxay tahay ninkaan u baaqaysaa maxay ahayd ninkaan iska gadaysaa wuxuu bilaabay ninkii dabeecadihiisa rasmiga ahaa baa maalinta ka dambaysa soo baxay oo is soo taray laakiin gabadhi Yvonne ahayd jacaylka ay u qabto xad dhaafka ahaa daraadiis way arki weyday ninkan yani isbedelka ku dhacay iyo wajiyadan cusub oo la soo baxayo way dareen kari weyday gabadha Yvonne ahayd saaxiibadeed ayaa waxay ku yiraahdeen Yvonne ninkan waxaan ka baqaynaa inuu wax xun kugu sameeyo walaalay ninkan uu masayr badan yahay ma iska fiirisid ninkan amuu dhibaato ku geystaa bal ninkan xiriirkiisa bal iska hubi saaxiibadeed ayaa ku leh gabadha Yvonne saaxiibadeed ayaa ku yirsaas markaas waxay tiri ma dhib male hadduu masayr badan yahay xitaa waxa ka keeni karta jacaylka oo ii qabo baa masayrka ka keeni karta bay tiri gabadha Yvonne ahayd arrintu markay halka marayso oo saaxiibadooda dhan ay ka kala gaabsadeen oo tartiib xiriirkeeda u soo gaabinayeen maadaama ay arkeen ninkan inuu nin aggressive yahay oo maxay ahayd arrintiisu ay jacayl kaliya aysan ahayn ninkan wax kale ku ma aragtay qarsoon yihiin bay ka gaabsadeen saaxiibada badnaa oo ay lahayd gabadha Yvonne ahayd maalmaha kamid ah baa tii ugu darnayd markay dhici rabtay baa waxaa dhacday waxay aadeen meel fardaha maxay ahayd fardafuulka meel la isugu yimaada jirto oo la ballamo group dad ah dhalinyaro family friends waxay rabaan aadan baa meel waxaa la isugu tagaa fardafuul ah meeshii fardafuulka bay tageen maxay ahayd waa in tusaaya halkaas screenka idin soo saaraya iyada Yvonne iyo wiil kale oo daris ay ahaayeen oo meesha taagan isla hadlaya oo kuwa screenka idin saaran meeshii markay tageen bay wiilka iyo gabadha ayagoo sheekaysanay wax weydiin oon dad isku yimid waa taqaan waxba la isweydiin karaa ii waran maxaa qabataa ka waran modelkaaga waxaasoo ka wareysanay ninkan waa nin xanuunsane team intii buu arkay meesha gudaheeda kulmo oo sahaldin markii ay soo dhamaatay fardafuulka oo la soo hoyday qolka la tagay buu wuxuu yirnaaya ninka ad maanta istusaysay maxaad ku lahayd wad balansanaysa Soomaa ninka soo sheegay Soomaa maya wiil oo daris ahaan jirno aha
xaaskiisaaba la socotaba ma jirto see ugu dhihi kartaa halkiiba ku bilaabay garaacis gigde wax ka celinaya oo alla abuurtay ma jirto qolgeesay ku jiraan meesha waa meel baadiye ah nafta inuu ka qaado waxba uguma dhinnayn sanka wuu ka jibiye wejiga dhan wuu ka maxay ahayd wuxuu uga sameeyey calaamado feer gigde sida nin faciis ah buu la feertamaya gig wayaabtay gabadh maxay ku hadli kartaa ha i dilin nafta ha iga qaadin ha i dilin maxaase ha ii yeelaysaa nafta ha iga qaadin nafta inta kaa qaado oon ku dilo baan ku jarjarayaa oo weliba leeyahay ninka isaga ahaa sheekada siduu markay halkaa marayso ninkii tiim ahaa gabadha gegta ka gadgadiyey oo sanka ka jabiyey oo ilkihii qaar ka daateen oo gabadhi waxaan ku leeyahay si kale uma taqaanide laftay taagtaba wuu jabiyey waa ninkii tiim ahaa gabadhi baralaata dhulkay dhacdo waxay tiri ku sheegi maayo walaalow ilaan waxay istiri xal kale waa weyn ninkaan inuu naftaba ka qaadi rabay ogaatay waxay tiri ku sheegi maayo walaalow maxay ahayd waa ku dareemi karaa jacaylka baa waxay isticmaashay maskax markaan qoftaan naftay u yaabtay because waxay arday inay dhiman rabto kuma sheegayay tiri walaalow maxay ahayd bal sidaan ii dhaano i daawee oo dhakhtar igee cidna ogaanayso alla abuurtayna ma jirto ballan mi ahaa wixii ilaahay qorayday waa gooni waayuhuu yiriyo meel isbitaal uu geeyey jo ma aysan dhihin intuu meesha taagnaa u dul wareegay maxaa kugu dhacay accident waxaas wax beena un bay sheegtaa calaa ii taxaal jaanis waxay u heshay gabadha in isbitaalka la seexiyo asagiina uu gurigiisa iska aado markaasuu waa ku baryay tiri halay caawiyo ninkaan inuu wuxuu iigu hanjabay hadda ka hor inta ku dilo waan ku jarjarayaa buu iigu hanjabay hadda ka hor marka halay caawiyo ninkaan isaasaas ii gari waan saaxiibkay baliiska markay intaas ogaadeen isla markiiba ninka waa la raadiyey xabsi baa darqal siiyey inkastoo aan sidii ay ma aragta iyadu ay rabtay aan loo xukumin ninkii maxkamad ayaa lasoo istaajiyey oo maxay ahayd dilka dhanka wadanka Jarmalka inkastoo aysan ma aragtay lifetime iyo waxaas aan 3 sano lagu xukumay ninkii kadibna in iska sii daayo gabadhii Yvonne ahayd nolosheeda wuxuu raad uga tagay ninkaasi saa u galay in ay guur iyo nin iyo xiriir dambe ay sarjo ka yeelan gabadhaas yacni niyad jabka ku dhacay iyo nimoo dhan inay ka fiigto baa ku dhacday gabadhaas nin dambe ilaa hadda waa single wax ay maxay ahayd oo magaciisi ay ma aragtay oo maxay xiriir ay samaystay ma jirto xiriir dhan way ka fiigtay gabadhi tii la ogaa ka raacday marka asxaabay waxaan idin sheegayaa imisa gabdhood oo saas ay ku dhacday baa jirta oo Soomaali ah imisa gabdhood baa nimanka noocaas oo kala ah ilaahay ku soo aadiyay waa badan yihiin ma yara marka qisadan waxay xambaarsan tahay in aan xiriirka xumaado noloshaada uusan raad ku yeelan ee aad hore uga socto in aadan ma aragtay isdhehnimo dhan wuu xun yahay lama yaqaan ma garan kartid ku fiican baa ili kartaa ku xun baa kugu soo aaday ku naagaha dilaa kugu soo aaday ku fiican baa ma taqaanid adigu waxa kaaga imaan kara marka asxaabay qisadeeni maanta saaxiibkaygii xumaa oo noloshayda dhaawac ugu weyn ii geystay halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aad channelka cusub tahay ha iloobin subscribe like share waa xaggaaga wixii soo jeedinana waa xaggayga ha idiin wacnaato maalintu